dhismahan aad aragtaan waa goobta uu shirku ka dhacay maanta kaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Siiraanyo iyo wafdigii kala qaybgalayay shirkani ay yimaadeen iyadoo lagu galbinayo gaadiidkii lagaga soo qaaday hoteelkii ay ka deganaayeen magaalada London. madaxweyne Siiraanyo ayaa ka hor intii aanu gudaha shirka u gelin ayaa waxa uu dibadda kula hadlay saxaafadda uu yiri sida tan shirkan waxaanu ka rajaynaynaa inuu ka soo baxo wax geeska Afrika iyo Soomaaliya oo dhan u dana inuu ka soo baxo ayaan rajaynaynaa annagu kulliba waxaanu ka sheegaynaa qadiyadayada aanu leenahay Soomaaliland ahaan annagoo jecel in geeska Afrika nabadgelyo iyo wanaag ka dhasho walaalaha Soomaaliya oo ka dhasho annagu wixii aanu contribution ama muxuu ahay talo iyo ra'yi aanu ka dhiiban karno aanu ka dhiibano isla markaana aanu qadiyada Soomaaliland leedahay ee goonisitaageeda aanu dunida u soo bandhigno dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa loo diyaar garoobay shirka inaad magaranaysaa ka soo qayb gashaan yaad is aragteen oo ka tirsan dalkan Ingiriiska ama bulshada kale caalamka ee shirka ka qayb galay madaxda Ingiriiska qayb badan baan iska aragnay qayb kale oo badan oo noo qorshaysan way jiraan la soo doonaa insha Allah taala maxaad ka filanaysaa hadda Somaliland tiin ictiraaf badraadsan idinkoo had iyo jeer aad walwalka ugu weyn ka qabtaan ma idin la tahay in wax idin ka soo baxayaan halkan oran ma ina halka deemaan ictiraaf ka qaadan oran ma laakiin ictiraafku wax loo dagaalamo weeyo wax qadiyada loo sheego weeyo wax aad ka harin weeyo qadiyada adag uu tala weeyo marka dunida wax yeeraysaa iyada jirtaa laakiin dulimkan aad bay noo soo dhawaysay si wanaagsan waa loo galay cidaan argnaba si fiican bay noola kulantay si wacan waa nooga dhigaysatay qadiyada sidaas aan ku wardoon insha Allah taala ilaa 40 madaxweyne iyo ka tirsan ra'iisul wasaarayaal ayaa ka qayb galaya sida waraaqaha la nagu siiyay xafiiska arrimaha dibadda ay nasiiyeen ka mid baa tahay madaxweynayaasha goonida loo sheegay inaad dalahaan uga soo qayb galaysaan ma muuqataa markaa haddii loo taag waayo oo Soomaaliya ay midoobi weydo in si kale loo galayo idinka gooni leedin la tacaalayo xaalkii wal anagu kulliba waxaan jecelahay in qadiyadeeda si gaar ah loo eegayo jecelahay Soomaaliya in wanaag iyo nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaansho ay ku dhamaato ayaan jecelahay anaguna gooniso taagayaga iyo xasiloonida gobolka caamaan in meel la dhigo dunida meel iska wada tagtaan insha Allah Soomaalida kale ma saragteen cidna waxaan isugu nimid muxuu ahaa dacashooyin iyo isugu nimid mas'uul laakiin wali siraan wada qaadnay ma jirto مدن مدحوين وبرسولان راديو halka su'aalan ku weydiinayo waxay tahay mustaqbalka Somaliland hadii ay ictiraafkeeda ay heli weyso ma laga yaabaa inaad la midoodaan maxaa la yiraahdaa dawladda Soomaaliyeed ma Somaliland ictiraafkeeda way heli doontaa wayna ku dagaalanaysaa wayna waraysaa insha Allah taala waana gaari doontaa Cabdullaahi Maxamed Cali telefishinka qaranka London